ururka horumarinta dimuqraadiyadda SDDI iyo xubno ka tirsan haldoorka haweenka Hargeysa oo munaasabad ku biiritaanka urur siyaasadeedka ka loogu qabtay Hotel Casood ee magaalada Hargeysa. Ugu horeyn xogayaha golaha dhexe ee urur siyaasadeedka ka Cabdi Khalaq Awal Bari ayaa ku soo dhaweeyay ururka SDDI inay ku soo biiraan urur siyaasadeedka ka habeen uga sii qurux badan yahay caawa waxa weeyaan haldoorkii Hargeysa iyo habeenka ka weeyay waa habeen kale oo farxad leh oo qurux leh oo ka ay sugaysa weeyaan caawa waxa ka ku soo biiray oo awoodooda iyo aragtidooda ku soo biiriyay waxa weeyaan waa beerkii iyo wadii Hargeysa ayaan oran karaa ma aha taageerayaal lama oran karo wuxuu yiri abwaankii habla geela dhici karaa habla geesi dili karaa gobolkeenan mooyee geey kale ma joogaan waxaan aad u hambalyeynayaan aad u soo dhaweynayaa hablaha sharafta leh caawa ma qiireysanayba guushi caawa kursiga waynu gaadhnaba caawa gudoomiyaha iyo xogayaha ururka SDDI ayaa iyaguna hadallo madasha ka jeediyay ku qaabilay sida ay ugu faraxsan yihiin inay ururkoodu ku biiro urur siyaasadeedka ka hadaladoodiina waxa ka mid ahaa marka talada halkan ka soo qayb galnaa aad baan ugu mahadcelinayaa madaxdana aad baan ugu mahadcelinayaa marka waxa kaloon ku dari lahaa inaynu isbedel haddaynu u baahanahay in 13 November oo aynu isbedel halkii ka durugsan aynu aragno iyo caawa anigoo iyo muuqato xisbigaygii ka anigoo caawa inta la soo midowday ee madaxda iyo anigaba nala fadhidan aad ugu faraxsanahay de waxaan sugnaa waa guul iyo gobonimo marka ujeedadeenu saasay daaran tahay de haddii isbedel ima waayo way sii fogaanaysaa xaaladdu marka ujeedadeenu saasay daaran tahay waxaan leeyahay aad baad mahadsan tihiin ballanteenu waa guul iyo gobonimo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marshir sharafka qiimaha leh ee xafladan qiimaha leh nagala soo qayb gashay anigoo kala qaadaynin madax iyo mijaba halkiinaad ku salaamantihiin ku shafrantihiin halkan caawa waxaan ka shaacinayaa anigoo ku hadlaya dalada SDDI waxaan ku shaacinayaa inaan ku soo biirnay urur siyaasadeedka ka oo garab iyo cudud baan wujin doono soo xaqiiq maaha soo iskuma raacin insha Allah bismillah waxaan rajaynayaa inaan codkeena anigu afar maalmood oo soo jeeday sidan ka ugu soo midayn lahaa dhalinyarada SCD marka waxaan leeyahay madanayaal iyo marweynayaal iyo madaxba insha Allah bismillah sidan caawa halka dheer ugu soo galay inaan ururka ka ugu soo biiro ayaa waxa iga xaqiiqa inaan codkayga iyo cududaydaba la garab istaagi doono insha Allah bismillah sidoo kale hablo ka mid ah haldoorka Hargeysa ayaa madasha ka hadlay ku biiritaanka ka geesta kale mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka ka oo madasha ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa waad ka war haysaan oo maalin walba jaamacadaha Soomaaliland waxa ka qalin jabiya kumanaan dhalinyaro oo u baahan in mustaqbalkooda loo meeldayo oo u baahan in laga fikiro sidii shaqaabuur loogu sameyn lahaa intaasoo hooyo oo caruurtoodu ay ka tahriibeen dhibta mutaysteen weyn ognahay waxaan u baahanahay dhalinyarada in mustaqbal loo abuuro waxaan u baahanahay hooyooyinka in talada dalka iyo hablaha laga qayb geliyo waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa ka soo qaybgalkiina urur siyaasadeedka ka wuxuu u taagan yahay in loo sameeyo
kooto sidii haweenku ay uga mid noqon lahaayeen golayaasha qaran ee heer qaran waanan ka rumayn doonaa insha allahu tacaala dhammaan dhalinyarada rag iyo dumarba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal salaan kadib waxaa inoo yaala hawl badan iyo hadal yar ayaa inoo yaala maadaamaynu maanta u soconno inaynu ka ururnimo ka kaxayno oo aynu xisbigayno hawl ayaa inoo taalla hawshaasi soo diyaaruma nihin hawshaasi inaynu dhinacyada qabanno soo diyaaruma nihin waxa weeye waa inoo ballan aad baan idinku mahadnaqayaa haweenka dallada ku soo biirtay ee SDDA aad baan iyagana u salaamayaa waanan soo dhawaynayaa dee shaqo badan baa inoo taalla yaan la isdhiganin aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka mar walba wuxuu taagan yahay midnimada wadajirka cadaaladda iyo wax wada lahaanshiyaha bulshada Soomaaliland ujeedada ama hadafka guud ee urur siyaasadeedka ka loo asaasay ma aha dan gaara ma aha deegaan gaara mana aha ashqaas gaara hadafka iyo ujeedada loo asaasay waxa weeyaan si loogu badbaadiyo talada iyo wadajirka iyo midnimada bulshada Soomaaliland waa urur siyaasadeed dimuqraadi ah oo ku yimid rabitaan shacab iyo afkaar umadeed urur siyaasadeedka ka wuxuu kaga duwan yahay ururada kale waa urur waxa weeyaan aan la kala lahayn waa urur loo siman yahay waa urur astaantiisu ay tahay cadaalad wax wada lahaansho sinaanshiyo iyo walaaltinimo waxaan rajaynayaa 30 habeen kadib inaynu u dabaaldegi doono haddii allaha awoodda liyo ogolaado ka oo xisbi qarana urur siyaasadeedka ka oo noqon doona 30 habeen kadib mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalka ifafaalaheedii iyo sansaankeegiina uu muuqdaa ugu dambeyn kooxda fanaaniinta Haadbaan ayaa ku soo bandhigay heeso ay u sameeyeen urur siyaasadeedka ka waa urur kartida kasma iyo murtida dadka kaafiyo kor u qaadaye codka siya ka ururkeena ka kalka horumarkiyo قرشوك كامل يهاكا لو عبتو وأرور كارتيدا كسمية مرتيدا تتكا كافيو كرو قاضي أتكسيا كا أرور كينا كا تتكو كسبدي وكالين جالي برشدو كبا بشدني كفتو بسكينية وإن تبشو كرتد أمية بشدني كفتو بسكينية كهوة الجربو نوكينية كهوة الجربو نوكينية هبالو هو يلي هبالو هلي هبالو بيوي هبالو هلي نتبشو كرتد أمية بشدني كفتو بسكينية وإن تبشو كرتد أمية بشدني كفتو بسكينية كهوة الجربو نوكينية كهوة الجربو
keenaya Uda Axmed Xasan warbaahinta TV magaalada Hargeysa.